wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya, gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed, agaasimaha macadka caafimaadka qaranka iyo qaybaha kala duwan ee bahda caafimaadka ayaa ka qayb galay munaasabada daafurka saalada qaliinka ee Isbitaal Martini iyo umad celinta bahda caafimaadka ee gurmadka weyn ka geystay dib u howlgelinta saalada qaliinka iyo qaybta gurmadka degdega ah oo la xusuustay inay ku basbeeleen dab gudaha isbitaalka ka kacay 11kii bishii Maaj ee sanadkan. soo celinta iyo dib u habeynta saalada qaliinka oo lafdhabar u ah adeegyada uu bixiyay Isbitaal Martini waxaa gacan weyn ka geystay bahda caafimaadka sida uu xusay agaasimaha Isbitaal Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaludiin. isbitaalkan isbitaal public waaye oo dadka Soomaaliyeed loogu shaqeeyo adeeg uu bixiyo nooc walba yahay dadka lacag laga ma qaado lama kala xigo Soomaaliya oo dhan uu adeega service-kaas socday oo qayb kamid ah oo lafdhabar ahay oo qaliinka ahaa xaga khalkhal xoog lahaan galnay Mars 2023 maalin saaladii wada gubatay waa qayl dhaansanay garabkaana helnay marka isla markii garab istaaga ee noo muujiyeen dhaqaatiirta bahda caafimaadka wasaaradda caafimaadka meel gaar uga yaala runtii wasaaradda caafimaadka waa wasiirka ugu horeeyo runtii qayb weyn dadaalkana ka ahaayeen waan ugu hogaaminayeen iyagana aad iyo aad ugu mahadcelinaya isbitaalka adeegyada uu qabto maalinkii ilaa 500 qof mararka qaarkood maalin dhaweedo hadda wadada aad u xirneed oo aan dhahay shaqaalaha shiftiga caawa ku jira leeyahay joogan subax ma soo gali karaan OPD waa buux dhaafis ilaa kuwa habeenkii lagu qasbay inay galaan wadaha xirnaad ama xirnaan adeeg waa imaadaan 300 oo sariira ku sii dhownahay hadda qaybahaas isbitaalka ka kooban yahay adeeg bixinta isbitaalka way kordhaysaa muhiimadda waxa waaye mar walba service loo baahan yahay waaye kan saalada qaliinkana ma ku sii jirin waxaana isbitaalka kaliya ee general surgery iyo specialized surgery ba dadku ay lacag la'aan ka helaan elective-kiisa. gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed Dr. Luul Maxamuud Maxamed iyo agaasimaha macadka caafimaadka qaranka Dr. Xuseen Abuukar Muxudiin ayaa hadallo kooban ka jeediyay munaasabada. u baahan tahay arrintaas ayadoo wasaaradda caafimaadka ay hogaaminayso in dadka la baro siba bahda caafimaadka in contribution-ka ama wax isku darsiga dib loogu howlgelinayo kaabayaasha caafimaadka xil la iska saaro sababtoo ah waqti dheer ayuu dalkan ku soo jiraa deeqa iyo wax meel kale laga keenay marka hadda waxaa taaganahay waqti oo excuse-ka iyo cudurdaarkii uu soo dhamaaday dhan kasta maanta waxay noo tahay farxad sababtoo ah maalintii oo tortaaliila sheegay inta la isugu imaanay waxaan waa la sameyn doonaa ma qabin laakiin hadda alxamdulillah waxaan aad ugu mahadcelinaa dadka ka qayb qaatay ee ugu horeeyaan isbitaalada oo private-ka ah iyo kuwa public ah oo lacag tabarucaad iyo garab istaag badan bixiyaan hada ugu mahadcelinaya marka inaan anaga dhaxdeena aan isgarabsano waa arin oo aan mar walba sugayno mana aan isbitaal gubtay kaliya in mar walba isbitaalada public ah mar walba waxay u baahan yihiin maxay tahay in la kaalmeeyo. wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan oo soo xiray munaasabada ayaa bahda caafimaadka ku booriyay isxilqaanka weyn oo ay sameeyeen wuxuuna dhinaca kale xusay inay xoojin doonaan isbitaalada danta guud oo bixiya adeegyo lacag la'aan ah. aad baan ugu faraxsanahay inaan idin kala soo qayb gala munaasabadan oo loogu mahadcelinayo halyeeyadii maaragtay ka qayb qaatay inay dib u soo noqoto muddo yar kooban gudaheed saaladii qaliinka Martino bulshadana ay mar labaad u adeegto hawl aad u weyn ayaad qabateen waxayna baraysaa arrintaas in isku tashi haddii aan ku xisaabtanno deeqa iyo dibadda wax noogu yimaada aanan kaliya sugin in wax badan aan qabsan karno ayayna baraysaa. waxaan amaanayaa agaasimaha isbitaalka sida wanaagsan oo u maamulay una maareeyay. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.